ninkayga hooyadeyna way ila guursaday wadada ayay ku soo jirtaa gabdhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارد السلامي خيرت قيمة يا مدن ملك سودوكا كجوجتان سوى البومقل إيه موقعيقو إذن سو قاريو وولالك عبد الله مع الحسين عكاوض سعوتان شانل كان قروح دقو اسكتشو شاكل ساوي سعوتي او قرقورة وقت بوقت النوغو ديبو لابد كون يساقالي يتبنكا لابد كون يلباتنكا ساعد او قرقورة لابد كون يكوب يلباتنكا ايا اللي سو قاري وحا امريسا ان قبر سوماليات انت ميل سو فريستو اي تراعو ninkayga waxa uu ila guursaday aniga eedaday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ninkayga waxa uu ila guursaday aniga eedaday yaa ku xiga habarirtay buu ila guursaday waxa ku si xiga walaashay iyo ila guursaday hooyana way ku xigtaade ila hadii eedda la marayo habarir maxaa diiday hayade 2025 tana hooyaday baa ila guursaday wada maqli doontaan balaayo inay soo socoto saansaankeedan ka dareemo nin hadda ku horiira leeyahay hadaba warkii ay ku dheeran muuqaalkeedu ku badane gabar Soomaaliyeed baa waxa ay sheegtay ninkii ayada qabay in uu la guursaday eedadeed aabaheed la dhalatay xasbunallahu wa ni'mal wakiil bal aniga aayadayda iyo midda ila qaadan doontaan waa inoo dambaysay bal sheekh Kinyawi oo arinta wax laga weydiiyay iyo qaabka uga jawaabay ila daawada waxaan halkan maanta Nairobi kala hadlayaa wiilkaagan gabadha uu qaba la guursaday eedadeed waa xaraan rasuulkaana xarimay wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam la yujma'u bayna almar'ati wa 'ammatiha wala bayna almar'ati wa khalatiha gabar iyo eedadeed ama gabar iyo habaryarteed laguma kulmin karo guur hadaad gabadha hore u qabtay eedadeed waxaad kula joogtaa waa macsiyo waa fisqi waa zina weeyaan xarigna kuma qaban ma aqaan wadaad xumaha ku guuriyay ee aanan ka warqabin xadiiska saxiixa xadiiskuna waa Bukhari iyo Muslim ilaahay ka baq ma qabtid eedada waxaad kula joogtaa waa xaraan gabadha eedadeed ama habaryarteed kulma kumli kartid guur waayahay halkaas ayay diintanadu dhigtay dad baa laga yaabaa inay kaftan u arkaan gabadhan adigu aad qabto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baneeyay ee ooridaada ah oo asturaadaada ah oo adiga cawradaada ah uba arkaba inay tahay wax khiyaali ah oo cayaar ay tahay wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim wallahi waxaan anaga cayaar u aragno ba alla agtiisa ka weyn ayaan dhawato waxaan daawanayay wiil xaaskiisa ku lahaa waad iga furanta riwaayad buu sameynayay kaftan bay ka tahay waad iga furanta sidaasay ku sii ilma dhalaysaa oo guriga ugu sii joogtaa wax walba ba khiyaali baan ka dhiganay laakiin su'aashii isweydiinta badan waxay tahay ilaah baan kugu dhaariyay adigaasaan ku weydiinayaa wiilka gabadha uu qaba eedadeed la guursaday aqoon darniya ka tahay adigan ku weydiinayaa gabadha uu qabo eedadeed ninka guursaday waliba isagoo iyadii qaba la guursaday oo miyara ka dhigtay ninkaas ma diin yari bay ka tahay ma aqoon yari bay ka tahay kula tahay adiga wallahi inaysan ka ahayn waa iska yeelid iyo heerka anaga uu inala gaaray suuraha aan ku wada joogno ayaa heerka inala gaaray kama ahan aqoon yari kama aha jaahilnimana kama aha maanta ma joogo Soomaaliya ama ma jiro qof Soomaali ah oo jaahilnimo heerka la eg qaba ma jiro nin walba waa yaqaana gabadha uu qabo eedadeed in aanu meher u qabaneen waa og yahay in gabadha uu qabo eedadeed waalid ay u tahay qof kasta waa dareensan yahay soo agartan ma laakiin suurihiiba halka in la galay waa aayada aniga aan ka qabo midda kale oo idin weydiinaya waxay tahay walaalayaal tan eedada sheeganayso eedar ku dhacda eedada sheeganayso sidee ku aqbashaa iyadu gabadhay eedada u tahay ninka qaba in ay gogol la seexato sidee ku aqbashaa aqligeeduna u siiya waxyaalaha la doonayo ina anagu isweydiino wiilkii dhahayayba wixii ku qaadayba ku qaadan lama suucligaas iyadan
eedada ah sidee bay ku aqbashaa dareenkeedu u siiyaa caqligeeda iyo garaadkeedu u siiyaa gabadha eedada u tahay ninka qaba in ay gogol la seexato garaadkeedu sideeba uga dhadhacaa gabadha adigu eedada u tahay ninka qaba sideeba hunguri iyo damac kaaga soo gala waa inaan isweydiinaa mogta dad badan baa waxay leeyihiin waxan waa been dad badan baa waxay leeyihiin arintaasu ma dhici karto dad baa waxay leeyihiin waxa laga yaabaa daliil bay u raadinayaan waxa laga yaabaa jaahilnimo inay ku geysay diin yari inay u geysay maanta ma jiro qof Soomaali ah oo diin yari heerka ka gaartay wallahi inuusan jirin mana aaminsanay inuu jiro qof Soomaaliya in arinta uu ku dhaqaaqayo oo ay ka dhaadhacaysa gabadha uu qabo eedadeed inuu hunguriyeeyo oo damac ka galo oo sariir la seexdo iyaduna aqbasho mustaxiil waa wax mustaxiil ah wax badan baa la soo arkay wax badan ayaa la soo arkay 2019 dhamaadkeeda 2020 waa idinka wada daawanayay gabar yar oo la lahaa aabihii dhalay baa nooca u kufsaday gobolada waqooyi bari Kenya ka dhacday oo aad ila daawateen oo la wareesanayay hay'adan oo NGO gabar ka shaqeysa la wareesanayay oo dhahaysay aabaheed baa nooca ku sameeyay gabadhii u dhalay wax walba waa la soo arkay waxaad aragteen gabar la wareesanayo oo gabar wareesanayso oo ay leedahay aabahay noocaas iyo noocaas iyo noocaas uu igu sameyn jiray hooyadeyna intay aragtay ka aamusi jirtay waxyaalo badan oo waxa jira maskaxiyan qofka aan aqligiisa aanan gali karin oo aanan qaadan karin ayaa jira laakiin ma dhacayso totally jaahilnimana ma noqon karto gabadha aad qabto eedadeed in hunguri iyo damac ka soo galo adigoo og in aabaheed ay la dhalatay inuu damac ka soo galo waa mustaxiil gabadha laftirkeeda iyadoo og wiilkani gabadha uu qabo in iyadu eedo u tahay oo guri u joogto waliba in damac uu ka soo galo oo sariir la seexato oo ay dhahdo waliba igu meheriya waa wax mustaxiil ah kulay meherkaasu kama dhicin meel publica kama dhicin waayo dadku way iswada yaqaan gabadha markii la meherinayo ehelkiya imaanaya ma hadda wiilku gabadha eedada u tuu qabaa waa ku sidee ila halkii waa la wada imaanaya moogta marka meherkaas waa meher gaabay buu ahaa oo meel luqyo ah lagu soo arkay baanu ka soo qaaday laakiin waa wax mustaxiil ah oo maskaxda qofka bani aadamka aan ka dhaadhici karin haddaba walaalayaal marka wax walba saan u sahalshanaynay oo waxba kama jiraan ooga soo qaadanay oo kaftan iyo ciyaar ooga soo qaadanay bay halkaa ina la gashay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ceebaha gabdhaha naga Soomaaliyeed ha asturo wallahi xaalad adag baa lagu jiraa meel xun baa la maraya heer waxa maanta marina arinta ay soo yeerto berina waxaan sugeynaa habartay buu ila guursaday diintu maxay ka qabtaa maalinta ku xigtana waxaan sugeynaa ama sanadaha ku xiga walaashay buu ila guursaday diintu maxay ka qabtaa wa an tajma'u baynal ukhtayni illa ma qad salaf ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa uu kulay gabadha aad qabto walaasheed meher ku qaban maayo eedadii waalidka iska badaa waa baab kale ayadana sanadaha ku xiga hadiiba eedadii wax laga weydiinayo culimadii oo la leeyahay eedadii buu ila qabaa diintu maxay ka qabtaa habartay baa ku xigta walaashay baa ku sii xigtay diintu maxay ka qabtaa ayadoo la wada og yahay cunuga yar ee 10 jirka ah in uu quraanka xifdisan yahay Soomaaliga maxaa ku sii xigi kara marka waa isleedahay waa ku sii xigta hooyaday buu rabaa ninkaygu inuu ila guursado diintu maxay ka qabtaa waa soo socota waayo waxa meesha ay marayaan haddaan laga hortagin oo markaa wixii dhaca aan la burburin oo halkeeda aan lagu damin ogow wixii effective ay nagu yeelanayaan oo bulshadana Soomaaliyeed ay ku faafayaan maanta mujtamaca adduunku waxa ay ka aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed in ay yihiin dadka muslimiinta dadka ugu horeeya ee diintooda ku adag laakiin inagu ma dareensanin waxa ma dareensan dadku waxa ay naga aaminsan yihiin xagga diinta iyo anagu waxa aan ku dhaqmeynay iyo qaabka anagu sameynayno wallahi waa kaaf iyo kala dheeri ilaahay burcad ha isu kaayo mariyo ceebaha naga iyo ceebaha muslimiintana Allah astro taana waxaan leenahay eedamaba ahay dib ha loo baaro hadiiba damac uu ka galay gabadha eeday u tahay leeyahay ninka qabay in ay la gogol gasho hadiiba damac ka galay eedada dib ha loo baaran anigu dhihi lahaa arrimaha noocaasana dad baa u yeelaya daliil iyo waa jaahilnimo iyo aqoon dari baa u geysay iyo dad baa dhahaya wax aqoon dari la yiraahdo ma jirto wiil walba oo Soomaaliyeed waa uu dareensan yahay gabadha uu qabay eedadeed in ay waalid isaga u tahay eedda kasta oo Soomaaliyeed waa og tahay gabadha ay eedada u tahay ninka qabo in wiilkeeda oo kale uu yahay oo aanu damac ka gali karin qof walba waa dareensan yahay laakiin haddii la iska indha tiro waxa imaan doonta ninkaygu hooyaday ayuu damacsan yahay inuu ila guursado diintu waxay ka qabtaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ceebaha gabdhaha naga Soomaaliyeed ha asturo wallahi xaalad adag baa lagu jiraa meel xun baa la maraya wabillahi tawfiiq
waxaan ku qaldamayn cafi masaamax intaan barnaamij kalama dib isugu soo laaban doono Soomaaliya ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh